waddanka lagu magacaabo Equatorial Guinea waa dalka kaliya qaaradda Afrika lagaga hadlo luqadda Isbaanishka waxaana uu xorriyadiisa ka qaatay dalka Spain sanadkii 1968 Francisco macías nguema ayaana noqday madaxweynihii ugu horeeyay dalka Equatoria kaas oo lagu garan ogaa Hitlerkii Afrika laakiin isagu isku yaqaanay madaxweynaha nolosha iyo mucjisada kaliya ee Equatorial Guinea ka dhashay Francisco waxa uu ka dhashay qoys saaxiriin ah aabihii waxa lagu eedeeyay inuu dilay walaalkii waxa uu na daawanay aabihii oo la dilayo kadib xukunkii ay ku riday maamulkii Spain toddobaad kadib hooyadii ayaa istishay waxa halkaas agoon iyo rajo ku noqday isaga iyo 9 walaalihiis ah Francisco wuxuu 3 jeer ku dhacay imtixaan u fariisay markii dambe wuxuu ku noqday magaalada Montgomery ee maamulka gumeysiga Spain mar dambena wuxuu xubin ka noqday baarlamaanka iyadoo sanadii 1964 lagu magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dawladda ku meel gaarka ugu dambeyn sanadii 1968 xornimadii dalkaas uu noqotay wuxuu noqday madaxweynihii ugu horeeyay dalkaas markii uu xukunka la wareegay Francisco wuxuu ku dhaqaaqay inuu dalka ka sifeeyo gumeystihii sidoo kalena wuxuu leen jiray dadka ka soo horjeesta xukunkiisa maalin ahayd ciidda Kirinska ee gaalada ayaa Francisco wuxuu go'aanka kubadda cagta ku casuumay 150 ka mid ah mucaaradkiisa kadib ciidamadii wuxuu amray in dhammaantood halkaas lagu toogto baarlamaankii dalka 3 meelood oo 2 meelood uu laayay sidoo kale wuxuu dilay ku dhawaad 10 wasiir halka uu dilay gudoomiyihii bangiga dhexe intaas kadib isaga ayaa gurigiisa ku maamuli jiray hantida qaranka Francisco maamulkiisii waxa uu kumanaan shacabkiisa ah ka mid ah ku qasbay inay dalka iskaga cararaan inkastoo uu leen jiray dadka isku dayay inay dalka ka baxaan dalkan oo ah jasiirad yar wadada kaliya ee la maro waxa uu ku rabay bambooyin sidoo kalena wuxuu burburiyay doomihii si aan looga bixin dalka hatta waxa uu dalka ka mamnuucay in kabaha dadku isticmaalaan mararka qaarna waxa uu dadka ku amray in aysan ka soo bixin guryaha waxa uu target ka dhigan jiray dadka aqoonyahanka iyo dheergaradka waddankaas 3 meelood oo 1 meel oo kamid ah shacabkiisa uu laayay barkoodna dalka si kasta iskaga carari karayeen ay sameeyeen waxaana dadka uu leeyahay kamid ah qaraabadiisa oo ay ku jirtay xaaskiisa dhammaadkii xukunkiisa dadkii aqoonta lahaa waxay noqdeen wax uu laayay iyo wax dalka ka cararay dalkana waxa ku dhacay maskax guur aanu weli ka soo kabsan iyadoo dhaqaatiirtu ay sheegeen in Francisco uu qabay xanuunka dhib sanadii 1979 in adeerkii oo lagu magacaabo Teodoro Bianga ayaa inqilaabay xukunkiisa kana mid ahaa dadku ehelkiisa ka laayay Francisco ugu dambeyn Francisco waxa lagu xukumay dil toogasho ah isla markaana xilli aroor hore ayaa lagu toogtay isaga iyo 6 eedeysano xabsi ku yaalay caasimadda haddaba arrimaha la yaab kale waxa ka mid ahaa ciidamadii dilka ku fuliyay Francisco waxa laga soo kareystay dalka Morocco iyadoo laga baqay sixirka qoys